markaad Itoobiya soo gasho ee marka horta dhibku ku bilaabaneed ogaanayso inaad khaldan tahay maskax khaldan aad ku socoto meelaad ka noqon kartana ma joogtid saadaad uga soo baxda dalkaaga gudihiisa waad iibsan tahay waayo nin iibsan oo lacag lagu iibsaday baa tahay adiga maalintii hore fikirkaygu wuxuu ahaa Yurub waa tan maxaa halkan baad mari baabuur baad sii raacay saxaraad soo gudbin Liibiyaad ka gudbay dalaq waad gali Yurub baad gali laakiin de maxay u qaadatay 3 sano ugu qaadatay inaan dhaxal soo maro dadkan la soo koray dad reemiyo iska xoolo dhaqata ah oo aan aqoon maaragtay wax inaba ha yaraatay magaariha ahaado ama diyaaradaha ahaado waxba waxa aan shuqul ku lahayn meel miyo aan inta midna laga aqoon telefoon xitaa aan laga aqoonin waddankan waxaan uga soo tagay dhibaato jirtay oo naftayda aan inaynan ku badbaadaynin aan u arkayay noloshayda oo is-edimation kuma noolaan kartid ama dil baa kugu imanaya ama waa lagu dili doonaa hadhow haddii kale askari noqo qori qaado waxba lagu kalifiday aan adiga rabin marka sidaa darteed baan uga soo tagay horta badanaa dadku dad ay u soo sheegaan malaha dadka oo family iyo waxa waxba ogeysiin maysa عادي لبا دلينيرا ama afar dhalinyarad la tashanaysa go'aan badooda qaadanaysan habeen madow baad soo baxaysan ku ka soo horeeyo meelahan jooga laga yaabo inta la hadasho oo niyo bal ii waran inuu ku dhaho nolol fiican baan ku jiraa iskaga soo tag meesha maxaa ku dhig sababtoo ah aniga wadada soo maray Liibiya markaan ka soo bilaabo Itoobiya markaad ka soo bilowdo Itoobiya dib baa kaaga soo bilaaban xabsi cunto la'aan gumaysi yaa lagaaga bilaabay ka soo gudub Suudaan sida oo kale mar walba lacag adigu qof bini aadam ah sida xoolaha lagu iibsan kana qof maanta ku iibsan ku kale ka iibsan Suudaan ila Liibiya dhul saxaro ah aad u dhib badan baa u dhaxeeya waxa jira dad Masar ka yimaado oo dadka kaliyahooda ka ganacsada qof nool oo intii la qabta la qalaya kaliyaha laga baxayo la iibsanayo wuu jiraa hadday kuwa ku qabtaan saas lagu waayay haddaad ka badbaado on iyo gaajo iyo cadawgaas bad saxaraha ku jiro ayadna waa Liibiya soo gashay Liibiya soo gashay noloshaad ku soo galayso waa ul xabad lagu rido waxa laga yaabaa biyo waraabi kaliya in xabad lagu dhufto dan iyo aaba laga amal nimankan dadka soo kaxaynaya waa diminaan cadow naxariis malaha dadka wax inaba ha yaraatay bini aadamnimo iyo xas ogyihiin ma jirto adiga iska daa qof aad taqaano ama aad asxaabtiina wax soo wada cuntaan oo meel soo saxateen qof bini aadam ah oo dan aqoon u lahayn markuu wax ku dhaco maanta adiga bedelmi ma eegi kartid mana u dul qaadan kartid waaba mid aad taqaano oo wax isla cunteen oo reerkoodi la hadashay oo saaxiibo noqoteen oo wax wada cunteen oo guri wada degnaydeen oo wada soo wada marteen kaaga siix daranba dhibkiisa iyo xanuunkiisa waa dareemaysaa marka qofku hadduu mar inta xabad ku dhacdo uu dhinto ama intuu mar badda ku dhinto waa laga samri karaa laakiin waxa ku daran qofkii oo caloosha ka soo dhacday oo calooshii aad maanta dhan ugu celinaysa meeshan ama lug nabar kaga dhacay oo ka dhaawaco jaban oo qaadayso ama gacan ka dhaawaco dixri galay oo aan wax daaweyn jirin way jirtaa waxay u yaabka badnay doon baan soo raacnay Liibiya anagoo joogna doontii markaan soo raacnay wayna la rugmatay adigu rugmad dad way socon weyday way halowday badda dhexdeeda ku halowday danta waxay nagu khasabtay inaan noqono oo Liibiya dib ugu noqono dadkii de wax la tuuro oo badda laga tuuro oo asagoo ku baryayo oo walaalo ay ridin leh badda lagu rido nin ma badbaadin karo kala carar bay ahayd askarna waa laga cararayaa badina waa laga cararayaa marka waxyaabaha igu yaabka badneed waxay ahayd dadka qaar ama haweenkii ama caruurtii meesha ku dhimanaysay ama ku cabaadaysay ama ooyahayay waxa jira dadkan marka qurbaha joogo waxay sameynayaan telefoon weyn baad qaadani sawir aan wajigaaga ahayn baad smartphone iskaga qaadi social media baad la wadaagi dadkii waad soo himi kicinay wuxuu oranday ninkii shalay ta nooca ah ay kula joogay miya saa u eg adigana meeshan aad ka fadhidaa lugihiisu ku tagay lugaha ku tagay hooyana ma kaxayn aabana ma kaxayn diyaaradna laguma qaadinay sheeka ma aha qof iiga sheekeeyna ma aha ana waxaan ahay qofkii dhibka soo arkay gabadh la dilahayo hooyo la dilahayo oogla ilmo yaro 2 jir ah ilmo 3 habeen dhalan oo la xirayo ama la garaacayo oo dan laga lahayn
hooyadii asaga la kala kaxaynhayo intaba waan soo arkay adigaba waad tegi kartaa nin walba ku fikiraya marka waxaan odhan lahaa dadka diyaasbaraha ama dadka qurba joogta inaynan dadka soo halaagin